waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin isagoo qof waliba meesha uu ka leeyahay ka qaadanayo salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaliyo xaajaba allah inoo suubiyo muraadkeennana allah sahlan saabtana allah ina ka helaano intaa kadib ilaah waa mahad leh inteena tan oo hela ama islaama meesha isugu keenay alxamdulilah intaa kadib aad baan u soo dhaweynayaa xafladdan qiimaha badan ee caleemasaarka ama walqasha madaxweynaha cusub ee Puntland intii soo agaasintay iyo intii soo ayidayba aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay idin soo dhaweynaya intaa kadib waxaan idin leenahay soo dhawaada intii soconaysay meel kastoo ay ka timi iyo magac kastoo ay ku timiba waa idin soo dhaweynaynaa waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dal iyo dad aanu idinka leenahay ma jirto dalka iyo dadku kaad u maqan tihiin ama u dhaarateen ama xilka u haysaaniin weeye soo dhawaanshada iyadu Soomaalida tiraahda qof socdana salaanka sugu mid fadhiyana Soomaaliya ka sugo joogista aanu joognay ayaanu idinku soo dhaweynaynaa ay lahaansha aanu idinka leenahay idinku soo dhaweynayno soo dhawaada intaa kadib meel hal lagu qalay baa la yiri mana hadal yara mana hugun yare meesha waa lagu badan yahay waxaan idin deeqinay haday idinku yimaadeen raalli baad ahaanaysaan haddaan intaa ka gudbo meesha tan caawa markii laga reebo qadarta ilaah waxa isugu keentay oo aan isugu nimi madaxweynaha cusub سعيد عبد الله علي مساركيس نبا وحي ورودنا الله كوها يورنا عنك سعيد عاوة مضاش هذا انت جوكتي على مساركاga والغش هذا يسود وينت هذا وركو وفلا سوالدنا waxay tiraahdaa hadalku madaliya minan bukalaleeyahay هاي عاوة هذا المدرسة بانكو هذا هذا المنان يدكو هذا المايو وحي منانا وايسوي معنا هنا دبي نوجود هذا هنا لكن عاوة هذا المدرسة بانكو هذا وهندريو يا ما دكتهين أما أدوك بأدوكتي عاوة صومالي يدري سديد وين ينمنا كامغناي waxay dareemaysaa intaasi waxa caawa meesha yaala ma ka dhacday inay danaynayso haddayan danaynayaan mid badni uusan yimaadeen in la danaynayo caawa xafladan iyo meesha tan iyo dalakan iyo dadkan ku dul nool in la danaynayo sida laaligeed magan ilaah bay u yihiin laakiin martida iyo mudnaanta caawa meesha tan keentay waa xafladaada miisaanka inta leeg hadii la joogo iyo hadii la tagaa lagaaga baahan yahay waxa tahay madaxweynihii Puntland oo maanta doorashadii ugu dambeysay ama 19 ku guuleystay waxa tahay wakiilka ama hogaamiyaha siyaasadda maanta kursiga ugu fadhiya Puntland waxaan adiga kaala ballamayaa ama intaas aan u sheegayaa inaad wakiil nooga tahay wada jirka isku xiraanta midnimada wada doonista Soomaaliya
aadan wakiil noogu ahayn keliya Puntland iyo intay degan tahay aan noogu tahay wakiilka Soomaaliya inaad kaalinta ay leedahay iyo qof walba mudnaanta uu leeyahay laga helo qofku bini aadanka hadal in buu abaaruga leeyahay hanti in buu ka quuraa awoodna waxbuu ka qaadaa kii aadan abaarta u lahayn ama aqoon u heli karin ama awooddaadu daafici karin eedeedu kuma qabanayso eebtu waa nimay ku taaliyeen in lagu tiray baa la yiri wixii aad abaaru leedahay wixii aad ka dayacday eedooda ku qabanayso wixii aadan intaa ku lahayn eedoodu ma ku qabanayso intaa inaad iska ilaalisid intaasna ku xisaabtantid baa laga doonaya miisaanka intaa leeg imaatinka intaa leeg waqtiga intaa leeg socodka intaa leeg waxa loo yimi waa caleema saarkaaga hadde waxa laga doonayaa aanu kaala ballamaynaa anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka ama isimada ama dadweynaha Puntland inaad wakiil noogu tahay qof kasta oo Soomaaliya magaca uu sheegto iyo meel kasta uu joogo iyo martabadooda kasta uu hayaba mudnaanta uu leeyahay ayaad caawa wakiil noogu tahay dhagool u maqal inta haddaan ka gudbo waxay la tahay magaalo waa madal baa la yiri wixii joogaana waa marag caawa meeshaan waa lagu leeyahay nin kasta oo madaxweynaha khaasan madaxweynayaasha maamul goboleedada intaasoo kale ayaad idinkuna wakiil u tihiin hadalka inta aan yiri siciid ayaad la wadaagtaaniin idinkaba tegin مسؤولية أنت عليك يوم إنسان كأنت عليك باقف والبو كسارن ميشة أتكوتشوكت وأنا أقول حساب تنتا وهذا دارتين وكيل كوتهين مركيات كتاب كجعان تساريسين هير هبلي هير هبل ليدين مورن وأدوكتهين وهي وكيل كليدين كدلي إذن كان أنت سيال ليدين كباهي هاي إيوه إنك صفيعة أنت أداك قلت عاو الصومالي هل كان وكل انتهي وحانوها الله يا صوماليا وحان الله الله يا صوماليا ومدحويني فدرال كوجوغو مدحويني نينكي وحو يرهبين كده دابتيف ويدان يقاد علي ما أنت نينكا صوماليا حلك يدهيا oo kursiga Soomaaliya ku fadhiya adiga weey ninba wuxuu yiraahdaa la yiri dadku oonka waa wada qabaa laakiin annagu asqarantaanu dheer nin kastoo madaxweynaha iyo nin kastoo masuula adigu kursiga ugu guud oo Soomaaliya ninka ku fadhiyata qof kastoo bilaa aadan xil kastoo hayo iyo magac kastoo hayo waxbaad dheerta waxa dheertahay waxa ay mudan tahay iyo waxa ay tahay iyo Soomaaliya oo midaysan iyo Soomaaliya xaqeedii hesha iyo Soomaaliya oo isku duuban baanu ka doonaynaa waxaan malaynayaa caawa labeen dadeed ma maqna hadday mid siyaasi tahay hadday mid dhaqan tahay hadday mid diineed tahay ninbaa waxaa la yidhi wuxuu yimi meelii lagu tukanayo midnay maalintaasaana ugu horraysay
الله أكبر وذاتي وكل العليا وأركي وحي ربها شو ميل بيسكدي دنتا حقي عاوز كذا صلاة وهذي مدح سياسة هي هذي مدح نقامية هي هذي مدح دينية هي عاو ومدشان إنه وده شغناج وهول كان إنه كوده شراء ورمهان يو أرجعان نحماته إنك ما تحيسه قفل بواقع نحسي هاي وفرح سي هاي ورمرك إنه كلا تجنه وحين دحق ليه وإنه إنه دبده يسون ونوه يسفر إنه وحين يودي يا محيته waxaan qabi karaa oo inoo diidaya oo waxa keenaya danta gaarka ah baa ina ku badan danta guudka ina waa ina ku yarta qof kastoo murti leh qof kastoo maal qabeena qof kastoo mas'uulana ogaada reer Soomaaliyeedu haddii aadan dan guud helin dan gaar ah inayan ku mira dhalay waxaa loo baahan yahay marka dhibaato waa soo aragnay mira dhalkeedii geelna waa galgashaa ragna way iska diyaabaa la yidhi haddii wixii aynu soo maray ilaa 91dii haddeer aynu ku sii jiro hadda waxaa moodaa inayna horumarkeena diineen iyo daneen midna ayna gaarin qof kasta oo mas'uula magac kasta ha sheegtee inuu midnimo Soomaaliyeed iyo wadajir Soomaaliyeed iyo gacan qabsi Soomaaliyeed uu raadiyo baa loo baahan yahay haddii aynaan sidaa raadin haddee ilaah ka dooni mayno laakiin ninka weyne wadka dilaya waa yaqaanaayo xanuunadii hore oo ku qaban jiray oo aad ka kici jirtay iyo marka uu xaqiiqda wato waa kala dareemaya markaynaan waxaynu soo toobin waxa inoo damayn doona qofkii iimaan leh ama mas'uuli waa dareemaya أو واحد ماشان فرديا مسؤولينتي سياسة أما مدحوين يالها هذون أما وسيرها هذين أما حل بانها هذين وصوماليا فرديا أنت كله وصوماليا وددوينها أو وكيل أنا وخليه waxaan rabaa Soomaalinimo weey waxaan rabaa oo aan doonayo Soomaalinimo weey qolihiina siyaasadda oo wakiilka nooca oo aan hadda sheegay wixii aanu idiin igmanay oo idiin dooranay oo noogu dhaarateen baanu idinka doonaynaa haddii kale haddee libaax nin galay iyo nin galladay baa Soomaalidaa tiraahdo libaax nin galay ganay iyo nin galladay baa og nin kastoo siyaasi oo wixii lagu diray oo lagu ihmaday wixii kaaga aadan baa laga doonayaa bari wixii xeer oo aan miiska soo dhigatid baa ku oolaanaya inta aanu idinka doonayno intaa weey أنت هدان كيقولك كلي مقدم بعاو ميشان سقوتمي إن استغاني إن أنا سقون إن وضع هذا الشيء إن أنا وضع هذلين إن سكفر أحسن إن أنا هايبة عاو مركب قربان كوجل يا ميشان أنا قدوميني annagu haddaanu reer koonfureed oo xagga idinka soo xigno oo aad reer barina tiraahdaani niman reer muduga
la yiraahdo waxbaanu kala harayo waxay kelmadaasi tahay war wax dhacay waxa la dhalay aynu ka ahaan mid kalena rag baa yiri oo nin baa wuxuu yiraahdaa la yiri nuux iyo naalayaba waa la joogay caaw naftu yay iga dhicin marka caaw madasha waa lagu dhanyahay guddoonka dhaqanana caaw halakan ka oranayo guddoonka siyaasadeed ninkii le wuxuu oranayo isaga u taala garta aan caaw halkan ku gelayaa waxay tahay inta maqan xataa siyaasiyiinta ana wakiilka caaw inta dadweynaha oo Soomaaliya ana wakiilka oo shibilka inteena caaw madasha joogta salaadii waxaynu meeshan kaga tageynaa ama caaw kaga dheelmanayna wax dhacay waxa la dhalayaynu ka ahaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh